musharaxiinta isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka uga sharaxan xusbiga kulmiye gobolka Sanaag Axmed Cabdikariin Ducaale oo astaantiisu tahay mooyaha Siciid Jibriil Xasan oo sita lambarka 211 iyo Maxamuud Cawaale Dayuurad oo isna sita lambarka 209 ayaa wacdaro aan hore loo araga ku soo gabagabeeyay maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashooyinka xusbiga kulmiye ee degmada Ceerigaabo waxaana kumanaan kamid ah taageerayaashooda oo sita boodhadh astaamaha iyo nambarada musharaxiintani ku sawiran yihiin iyo sidoo kale calanka xusbiga kulmiye qaarkoodna ay ku labisan yihiin dharka hidiya dhaqanka ay socod lug ah ku soo mareen wadooyinka halboolayaasha ah ee magaalada Ceerigaabo taageerayaasha oo si weyn uga muuqday taageerayaasha musharaxiinta kale ayaa ugu dambeyntii iskugu soo biyo shubtay beerta xurriyadda ee magaalada Ceerigaabo oo ahayd goobta loo asteeyay ololaha xusbiga kulmiye waxaana munaasabad ballaadhan oo halkaasi ka qabsoontay ka soo qayb galay mas'uuliyiin wasiiro iyo musharaxiin mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay waxaa kamid ahaa musharax Axmed Cabdikariin Ducaale Siciid Jibriil Xasan iyo Maxamuud Cawaale Dayuurad oo mahad celiyay taageerayaashooda sidoo kalena faray inay maalinta codbixinta ee 31 May codadkooda siiyaan musharaxiintani waan aniguna kamid ahay calaamadaydu tahay mooyaha iyo labada xildhibaan ay igu sidkan oo nambaradoodu kala yihiin 209 ama 209 iyo 211 waa kuwa igu sitan labadaasina aniguna mooyahaas oo aan sido gacanta ku sido ayaan ma garanaysaa igu ridaysan haddii la yidhaahdo 31 bisha marka doorashada la gelayo mooyaha lama ilaawayo waad garanaysaan waa hidiya dhaqankeennii aniguna waxaan ballan qaaday haddii ilaahay yidhaahdo waxaynu maqlaynay 30 sano distoorka Soomaaliland waa qabyo distoorku qabyo dambe noqon maayo ma sii soconayo qabyada waa laga saarayaa rabtaladan salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland salaamaya mudane Muuse Biixi Cabdi taageerayaashayada aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa inoo ballana maalinta codaynta 31 May nambarkayga waa garanaysaan reer Ceerigaabo 211 waa kuubsanaysaan aad baa u mahadsantihiin waa maalintii u dambaysay waxaynu guushii u saarannahay wax yar waxay nooga hadhay 3 casho waxaan dhammayn wax laynaga rabaa inaynu guntiga meel sare ka xidhanno maalinta codka iyo goobaha iyo meelaha aynu tegayna codkeennu yaallo ee sanaaduuqdu taallo in si taxadar leh loo saxo ama loo balaaso lambarka 209 waxaan rabnaa inaynu ilaalinno dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha amni darrada inagu keenaya sababtoo ah waa laynooga faa'iidaysanayaa haddaynu wax amni darraa samayno waxa muhiim inoo ah inaynu si amni iyo ammaana aynu ku codayno oo aynu si xora codkeenna u dhiibanno xalaal waa markii ugu horeysay ee musharaxiin isku sidkan noocan oo kale ahi ay wacdaro noocan oo kale ah ka dhigaan ololaha degmada Ceerigaabo tan iyo intuu banaanbaxayo xusbiga kulmiye Farsamo Kaaf Cabdirashiid Aadan Goobjoog TV gudaha magaalada Ceerigaabo.